inay deynta Soomaaliya laga cafiyo waa soo dhaweynaa aad ugu maasay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wiligiisa jira hana jooga waxaan soo dhaweynaa markii baad iyo mar labaad xukuumadda federaalka Soomaaliya deyn cafintii 60 sano lagu lahay deyntii lagu lahay dawladda Soomaaliya ayaan ugu faraxsanahay in Soomaaliya 60 sano kadib deynta laga cafiyo midaasna soo dhaweynaa insha Allah aad ugu faraxsanahay deynta Soomaaliya oo la cafiyay Soomaaliya oo maanta deyntii xorka ah guddiga sare ee hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa ku dhawaaqday go'aan kama dambeys ah oo lagu cafinayo Soomaaliya deyn cafintii oo in muddo ah ay dawladda Soomaaliya ku dadaalisay lagu cafin lahaa bulshada ku dhaqan degmada reer Balcad ayaan weydiiyay siday u arkaan deyn cafintan Soomaaliya ee laga cafiyay Bismillahirrahmanirrahiim waxaan aad ugu faraxsanahay deynta Soomaaliya oo la cafiyay Soomaaliya oo maanta deyntii xorka ah oo maanta wax walba ay qabsan karto waxaana ku mahadsan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hajira ha noolaado wiligiisna hajiro aad u mahadsan yahay Soomaaliya wuxuu ugu faa'iideysan kartaa lacag cusub in ay suubsato wadanka horumar in ay gaarsiisato wax walba ay rabto in ay suubsato deyn cusub in ay qaadato wadankeena Soomaaliya aad ugu faraxsanahay haddaan ahay gabar wadani ah degan degmada Balcad waxaan soo dhaweynaa markii baad iyo mar labaad xukuumadda federaalka Soomaaliya deyn cafintii 60 sano lagu lahay deyntii lagu lahay dawladda Soomaaliya guul ay gaarto waa Soomaaliya in 60 sano ka bacdi laga cafiyo deyntii lagu lahay waxaana hanbali u soo jeedinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan xukuumaddiisa horumarka iyo guusha uu ka gaaray deyn cafintii Soomaaliya lagu lahay 60 sano waxyaabo badan iyo fursado badan uga faa'iideysan kartaa maxaa yeelay dalalka horumaray qayb ka noqonaysa iyo dib u shaqayn badan iyo hawlo badan ay qabanay dalka u qabanay magacayga Cali Sheekh Ibrahim oo ku dhashay degmada Balcad wiligiisna aan meel ka aaday waan ku faraxsanahay deyn cafinta Soomaaliya laga cafiyo 60 sano kadib waa horumar ee Soomaaliya gaartay aad ayaan ugu faraxsanahay in Soomaaliya 60 sano kadib deynta laga cafiyo midaasna soo dhaweynaa insha Allah waa arin aad u fiican oo Soomaaliya horumar ay u maadaama 60 sano deynta la cafiyo aad ugu faraxsanahay farxadeen ma mid la soo koobi karo Soomaaliland way ku farxay kaliya ma aha sana kadib inay deynta Soomaaliya laga cafiyo waa soo dhaweynaa aad ugu maasay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wiligiisa jira hana jooga madaxweynaha guul ayaa leenahay guul ayaa u rajeeynaa dawladda Soomaaliya ayaa u dabaaldegaysa 60 sano kadib maanta deyn cafintii laga cafiyay Soomaaliya lacagtan lagu lahaa ayaa waxay gaaraysaa 5.2 bilyan oo dollarka Mareykanka badankeedna waxa ku lahaa wadamada Faransiiska Mareykanka sidoo kale World Bank IMF iyo Ruushka Soomaaliya ayaa horumar kala duwan laga filan karaa iyadoona markaasi goordhow ay ku biirtay bulshada bariga Afrika Saadaq Socdaal Hirshabelle TV degmada Balcad